السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan mahad u celinayaa studio-ga Danjir media Danjir gaar ahaan waxaan mahad gaara u celinayaa Basra Maxamed oo igu casuntay maanta studio-ga kan aad iyo aad baa u mahadsan tahay taa ka bacdi maanta aniga Cumar Ducaale baa la yiraahdaa Cumar Xaaji Ducaale waxaan joogaa Columbus Ohio bulshada ku dhaqan baan ka mid ahay ma ihi culimada laakiin nin caadi ah oo bulshadiisa ka mid baan ahay nin Soomaaliya baan ahay waxaan maanta halka isu soo taagay oo aan hawsha tan maanta studio-ga u imi waxaaniga ii dana oo ii gaara ma aha waa arrin aan ka fursan waayay inaan bulshada la wadaago kuna baraarujiyo wixii wax gelayaan oo wax qaadanaya oo wax fahmaya arrintaasi waxay tahay markaan biyo dhaco arrintaasi waxay tahay dhibaatooyinka dalkeena iyo dadkeena haysta waa kuwa aad iyo aad u fara badan aad iyo aad bay u fara badan yihiin haddii caawa magacooda iyo waxay kala yihiin la qorana lama koobi karo ilaahay un baa koobi kara laakiin caawa waxaan doonayaa in yar oo ka mid ah inaan wax ka taabto waxna uga sheego waxaana idinka codsanayaa bulshada Soomaaliyeed waxa halka ay keentay qiiro wadaninimo oo dad jacayl dal jacayl iyo diin jacayl mala inaan diinta horeysiyaa baahay diin jacayl iyo dad jacayl iyo dal jacayl baa halka ay keentay ummadda Soomaaliyeed oo 25 sanadood ama 26 sanadood muddada ah dhibaatooyin ku soo jireen oo maalinba ay meel joogtay heer ay soo joogtay oo sanadba sanadka ka sii dambeeya ay ka sii xumaanayso meesha oo wax haba yaraatee inoo baxsadeen aan jirin dhibaatadaasi meel walba ina gaarsiisay dhibaatadaas waa laba dhibaato bini aadam ina kaga timi markay ina ka heleen goldaloolooyin inagu aynu iska leenahay ayaa layna ka faa'iideystay marka bini aadam ina kaga timi tan kalena inaga isu geysanay oo gacmaheena anaga isu geysanay shalayto waxaan arkay magaalada Muqdisho iyo meelo ka badan Soomaaliya kamid ah mudaharaad ayaa la sameeyay mudaharaadka la sameeyay waxa loo sameeyay walaalaheena muslimiinta ah ee Turkiga baa loo sameeyay ujeedada loo sameeyay waxay ahayd inqilaabkii lagu doonayay in lagu afgambiyo dawladda Erdogan oo madaxda ka yahay in lagu inqilaabo oo laga qaado xukunka waa wax laga xumaado oo dal muslim ah oo is haysta maanta in la burburiyo ama colaad la geliyo colaad waxay tahay waynu naqaan inagay dawladdeena burburisay aqoon fara badan baynu leenahay dhibaatada ay leedahay meel dagaal ka dhacay marka in laga xumaado dadka muslimiinta ah aad iyo aad bay u fiican tahay in loo duceeyana xaq bay u leeyihiin in la isgarab taagona xaq bay u leeyihiin laakiin waxaan idin sheegayaa Soomaalidu waxay tiraahdaa wadaantii geelada kaafida anaga reer weey baan nahay dhaqan baan leenahay halkaas ka soo jeednay marka mahmaahayaga iyo waxay aad iyo aad dad badan oo dhalinyaro inaan garan baa laga yaabaa waxay ka soo jeedaan miyiga wadaantii geelada kaafida ayaa geel kalena kalkaasha macnaha wadaantu waa weel ay ku cabaan xooluhu oo lagu waraabiyo oo ceelka loogu dardaro marka markaad adigu taada waraabsatid ayaa qorta qofka kale toona siin kartaa wadaanta marka waxaan uga jeedaa biyo dhace waxaan uga jeedaa Turki dalkiisa isaga leh dadkuna dalku way u dagaalamayaan hadday mid laga tuurayo iyo haddii mid laga qaado iyaga hawl u taalo way laakiin inaga teeni
oo maxaan ku rahdaa intaas oo sannadood baxaadagaysay oo bini aadam gacanta ina ku hayo oo marba gees inoo jeedinayo baynu garan kari la'nahay marka wuxuu yidhi anaaba taydi u liitaa maxaynu qof kale tari karaa innagaaba tayni u liidanee mudaharaadka aynu shalay mudaharaadno Soomaaliya laga mudaharaaday ama heeriyooyada laga hadlay ama telefishinada ama aqoon-yahaniinta dadka lagu sheego anigu maba aaminsanay oo Soomaaliyeed aqoon-yahanka la wareysanayo ama BBC la wareysanayso ama Voice ama meel kasta ha joogtay la wareysanayo oo ka hadlaya arrinta oo wallahi arrintaas saasi wacaynkaas oo inaga tayni maxaa looga hadli waayay kasoo qaado dadka maalmo lagu leeyahay xamar oo la qarxinayo oo shacabka haysta baayac mushtarka hudheelada waa dad Soomaaliyeed looma mudaharaadin dadka badaha ku dhimanaya oo aad ogtihiin inta dhalinyaro Soomaaliyeed ama magafe dhexda intay sii socdeen oo beerkii iyo wadnihii kala baxay keliyihii lagala baxay spare parts lagala baxay partskii oo dhan jirkiisa xubnihiisii oo dhan lagala baxay waad ogtihiin uma idinaan mudaharaadin uma idinaan mudaharaadin dadkii ku dhintay wax alla wixii goboladaas iminka dagaalada ka socda saaxdheer oo qabaa'ilku isku leynayo kama idina mudaharaadin intaas oo dhibaato baa meesha ku jirta Soomaaliya marka maskaxdeenu sida u shaqeynayso aniga ma garanayo laakiin xaqa Allah idin waafajiyo waxaan rabnaa inaad wax fahantaan anagu cid ku duula malihi dad hal laayo anaa ka soo horjeeda in qof la dilo bini aadana in la dilo anaa ka soo horjeeda haday dawladaha dariska tahay haday mid kale qariib inoo yimi ay tahay haday kuwa nabad ilaalinta tahay aniga ka soo horjeeda in qof la dilo laakiin inaga waxaan rabnaa shaqada inoo taal oo inaga inoo taalo waajibka Ilaahay ina saaran inaynu ka soo baxno wixii awoodeena iyo karaamkeena oo aynu inagu shaqadeena qabsano ay qof bini aadana inayna u qaylqaylin intay teen aynu u qashano qof markuu haraadan yahay oo aad u haraadan yahay biyo raadiya xagaan biyo ka hela isagoo aad u haraadan maxaan ku raadin inuu caruurtiisii oo haraadan oo gaajaysan inuu caruur kale biyo siiyo ma awoodi karo waa in horta kuwiisa siiyaa marka waxaan leeyahay horta taas qodobkaas baa maanta toobigaygu yahay inaan idin ogeysiiyo war hawsha inoo taal inaga ha loo kaco arrimaha Soomaaliya dadkeena ha loo kaco qof bini waxaan kaloo idin sheegayaa dadka bini aadamka ah oo Ilaahay abuurtay nin walba meel buu ku abuuray Ilaahay dhul buu siiyey qaar buu bada siiyey qaarna bad iyo bariba waa siiyey qaarna wuxuu siiyey bad kaliya ku nool yihiin oo aylanay ku nool yihiin inaga Ilaahay wuxuu na siiyey bad wuxuu na siiyey bari wuxuu na siiyey xoolo fara badan wuxuu na siiyey beero biyo wabiyo wuxuu na siiyey kalluun aan adduunka meel laga hela aan jirin Ilaahay wuxuu na siiyey xabad adduunka meel laga hela aan jirin maydi foox malmal hadi meel laga hela adduunka waa ku yartay waxa Ilaahay na siiyey wax khayraada oo dhulka ku jira oo buuxa baa Ilaahay na siiyey wadankeenu waa hodan dhulkaasna Ilaahay barwaaqada uu na siiyey Ilaahay uu inoo ku mana sheegan doonaa bari intaynu haqalka u taagayno meel kale oo aynu leenahay aanu dhoofno oo aan dhul shisheeye qabanno oo meel dad hagaagsaday dadkii lahaa baa hagaagsaday inaguba teena waa hagaagsan karaa kolkaas oo kale waa ka dhigi karaa intaad u soo jeedaan meel ajnabi ama dhul ajnabi oo aad u soo jeedaan waxa ka khayr badan inaad u jeesato dhulkaaga aad kuna xamdidid wixii Ilaahay ku siiyey waxa loo cawdaa Ilaahay baa loo cawdaa bini aadamku Ilaahay baa dad muslimiin aan nahay 100% Ilaahay baa loo cawdaa Ilaahay dhibaato naga dulqaad waxa kale oo gargaar la weydiistaa wixii
aad isleedahay waxbaad ka heli karaysaa innaga arrinteena waxay noqotay international community-ga inaynu barino bariyo habar barhii ka dhimanaysa halkaasi soo taagaysaa waxay leedahay deeq bixiyayaasha war arrintaa ha la joojiyo ilaahay baa deeqa bixiya qof bini aadami deeq ma bixiyo qof bini aadami deeq ma bixiyo ilaahay baa deeq bixiya labada gacmood xadiiskii nabiga waa wada garanaysaa labada gacmood tan hooseysa iyo tan sare tan wax bixinaysa iyo tan wax qaadanaysa waxa khayr badan tan wax bixinaysa wariyaa 26 sanadood baan waxa maqlaayay deeq bixiyayaasha hana soo gaareen deeq bixiya hay'adaha samafalku ha yimaadeen goorma la oranayaa hala joojiyo hay'adaha samafalka goorma oranaysan war arrintii ilaahay iska lahaa bini aadan u dudeen arrinta deeqda bixisteeda ilaahay baa iska leh war ilaahay ka yaaba dad muslimiin oo sheeganayna waxaan garan waayay oo aad iyo aad aan wadooyinka markaan marayo aan ka habaaba wadada culimadeena khayr Allah siiya masaajidada muxaadarooyinka malcaamadaha guryaha gawaarida bal guri Soomaaliyeed hadaa tagtid waxa ugu horeyso dhagaha maqlaan waa sheekh khudbaynaya muxaadaro jeedinaya mid quraan akhriyaya kuwa quraan baranaya qof Soomaaliya hadaad maanta soo raacdo tan wararka ay gaarsi gaarigiisa quraan baa saaran baa u baxaya ما شاء الله bal waxaan daba garan kari waay war khayrakan 24 hours iyo meel kasto aynu joogno aynu ku haysano gacanta oo aynu haysano muxuu inoo gali layahay waanu u duxilaya oo muxuu inoo ku duxilayahay oo hadiise uu inoo ku duxi waay dhamaanteed muxuu qaybteen ugu duxi waay haduu qaybteen gaar waay muxuu almiino xoogaa yar loo waayay oo maxaan ku raahdaa ku sababtoo ku tahay xoogaagaas waa muuqan lahaay waxay qabtaan baa muuqan lahayd halkaasna khayr baa ka bilaaban lahaa marka bal qof walba adiga oo jooga barta aad taagan tahay maanta anigu Soomaali weyn baan la hadlayaa anigu gobol ma sabooro oo degmo ma sabooro oo qabiil ma sabooro mana saboorayo insha Allah wixii Soomaali ka sokeeyana ma saboorayo insha Allah biidmillaahi kariim diinta islaamku waa inama oran isqaybiya oo kala qaybiya diinta islaamku ma oran waa wixii ilaahay ka digay inoo ka digay weeyaan واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نعم marka arinta caynkaasa iyadoo ay tahay aniga Umar ahaan waxaad iga tala galeysaan inaan ahay Soomaali oo Soomaali u hadlaya madaxweyne ma rabo prime minister ma rabo wasiir ma rabo mid ka hooseeyana ma rabo laakiin in dadkayga iyo dalkaygu ay hagaagaan oo ilaahay dadkayga xaq tuso ayaan ilaahay ka rajeenaya kuna guubaabinaya dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin wax u sheega oo wacyi geliya oo abaabula inay xaqooda gartaan adduunka kan aynu joogno nin walba meesha uu ilaahay ku abuuray isaga ilaahay mas'uul buu uga dhigay ilaahay dhul buu ina siiyay asaageen inaynu barinona diinta islaamku inooma ogola tan bini aadminimadu inooma ogola gabdhaheenu guur ma leh sabanka maanta gabdhaheenu guur ma leh inooma eka gabdhaheena ilaba guursadaba inaynu qosolaa inooma eka qosol inooma eka inaynu maxaan ku yiraahdaa aroosano oo mashxaradno inooma eka waxa inoo eg waynu ceebownay inaynu sharafteeni la soo noqono inaynu dalkeeni ku soo noqono inaynu Soomaalinimadeeni iyo dawladeeni iyo haybadeeni iyo sharafteeni inaynu soo celino sharafta iyo haybada aynu ku noolay dad baa keenay ilaahay sabab uga dhigay dalkan aad arkaysaan dad baa u soo dhintay dad baa maxaan ku yiraahdaa naftoodii ku waayay qaar baa warqado joornaal laqay iyagoo wadankooda sirtiisa qarinaya Soomaali ilaahay ka yaabo cagaha qof walba meesha aad taagan tahay bal xisaabiyo adduunka maxaad u joogtaa adduunka yaa mas'uul inaga yaa ina keenay adduunka macna ilaahay baa ina keentay ilaah baa ina keenay isaga ina ka qaadi kara arintu marka waxay tahay war ilaahay inta isku xirtaan kalsoonida baa ina ka luntay bal ibtilada ina haysata dadka kale to sharaf baynu u leenahay
inagu isma sharfayno dadka kale waynu caawinaynaa inagu is caawin mayno dadka kale waa ka haybaysanaynaa inagu iska haybaysan mayno maantana haddaan wax fiican sheegayo cid iga hoos qaadaysaa ma jirto haddii nin ajnabi qof ajnabiya nin baa maalin wuxuu yiri arrinta Soomaaliya waa la dhamaynayaa iminka Mareykankii ba hadlay haye oo yaa hadlay naag buu ii sheegay naag state department ay u shaqeysaa ha heblaaya hadashay waxay tiri Soomaaliya sida war xagee arrintu iska qabsan kari laada xagee arrintu waa sidee war inta leedahay qof bilaal waxa maqli jiray bari kuwa lagu dacaadeyn jiray ilaahu xabal xoolasiyan ka xoogsanay war kan aad leedahay ilaahu xoolasi adigu ma tahay ilaahu xoolasi la iga xoogsaday aniga mid baan Soomaaliya idinku dardaarmaya waa badan tahay galabtu hawshadu aad bay ugu badan tahay haddaan bartireeyo raaliha la iga ahaado laakiin waxaan sheegayaa waxaan u soo noqonayaa qodobka la yiraahdo walaalnimada Soomaalinimada iyo walaalnimada Soomaalinimadu waa dulkaas ilaahay ina siiyay baynu magac ku yeernay oo Soomaali ku noqonay ilaahayna ina siiyay magacaas Soomaali dadku waa walaalo wax uu kala yahayna ma jirto haddii dhibaatooyin ina soo mareen oo dad aan aqli weyn lahayn ay ina baabi'iyeen oo dawladdeena ina ka dumiyeen iyagoo dan yar raadinaya ama magac yar ama maxaan ku dhahdaa baawar yar darajo yar inay ku helaan ama ay dadku cadaadiyaan xukunka dadka raadinayay ayaa dulkeenii saa u galay haddaba waxay garan waayeen xukunka siyaabo badan oo lagu helo oo aad u fiican baa jira haddaad wax fiican qabato ummadda ku jeclaato oo ummadda aad dhinaceeda iska dhistid danbayba kuugu imanaysaa baasho ninkii xukun doonayo oo adeer sidaa ku raadi bismillaahi raxmaani raxiim inaad tiraahdid oo aad wax fiican qabatid oo dadka aad u noqotid tusaale aad dadka tusaale u noqotid dee adeer ilaahay baaba ku siiyeyba tan kaleeto waxa weeyaan aan doonayo inaan iyadana idiin sheego Soomaalidu waxay lahaan jirtay dhiig bay lahaan jirtay aad bay u dhiig kululaan jirtay haddii magac Soomaaliyeed meel lagu xumeynayo ay arkaan way ka dhiidhiigi jireen hadduu qofku gaajaysan yahay oo ay badan yihiin oo dad badan yihiin oo iyagoo gaajaysan oo xoogaa yaroo cuntaa la siiyo midba midka kale si ugu dhiibaayo ilaa kan ugu dambaysa uu gaaro qofka hore ma cuni jirin wala aanu cuni jirin iyo bilayo tole maanta xitaa kan inaga ah oo meel loo dhiibaa xoogaaga uu meeshaas waxyaabaha dakhliga meesha ka soo baxa inta faamiligiisa lagu koobiyaa warba dhaqankiisu uu xumaaday iyaga war waadi horeeto ilaa martida la sooro oo martida wax la siiyo markaanu caruurta ahayn ilaa martida noo timaado caanaha iyo geela iyo hilibka iyo geela loo liso oo caanaha la siiyo oo bariiska loogu daro markaas anaga waxay soo reebaan hambadoodaana la siin jiray dhaqanka Soomaalidu saas u ahaan jiray oo fiicnaan jiray sharafta u lahaan jiray qofku kaaga sii fog yahay ayaa dadku ka hormarin jireen oo kaga xilweynaan jiray xididka la qadarin jiray oo ka sii daraa sodohda dumaashida Soomaalidu dhaqan waxay lahaan jirtay inaan gabar Soomaaliyeed meel ninna aanu taaban jirin dilid iska daaya xitaa aanu eegi jirin oo qabiilooyin isugu baabi'i jireen gabar nin hadal yiri maanta waxa la hayaa gabar Soomaaliyeed oo lagu qabto xamar bamaanad waxa laga sheekeynayay gabar ardayda oo kuwa farxumeeyeen ardaydu way iskuul bay ka soo baxday waqti bay seetaa jidka iyadoo lugeynaysa nimanka nabadgelyada waa askarta ayaa mid farax qof waxa la juuq yiri ma jirin baa leeyahay gabadhii iyadoo jaaqayba halka ay jiiteen qorin ma riyaalo meeda sharaftii Soomaaliya meeda sharafteeni maxaa ina bahdilay maxaynu ka baqaynaa waa maxay baqdinta ina haysataa maxaynu isagu dadka kale uga haybaysanaa inagu isaga haybaysan weyn maxaan inagu isu tixgelin weynay oo dadka kale u tixgelinayna taasi waa tan ugu naarmato waa naar mudasho waa show off maxaa la yiraahdaa show off way waa wax qofka kale waa qofka waa tus weeye qof kale iska dhis Soomaaliya 26 sanadood baynu qaxooti ahayn oo caradayna welina waa qaxayna waxaan leeyahay ilmaada riyaalo qaxootigu ha dhamaado hayna ka dhamaado qaxootigu ilaahay waxaan ka bari qaxootigu inuu ka dhamaado aamin waxa la yiraahdaa qaxootiga dalka gudihiisa ku jira nin dalkiisii jooga waxa la leeyahay qaxooti
waxyaabaha aan aad iyo aad uga xanaaqo waxaa ka mid ah oo aanan qaadan karin in dhulkiisii joog lagu yahay qaxooti barakace dhulkiisii buu joogaa kaasi ma aha qaxooti waxaa dadka dibadaha u baxay qaarna dhinteen qaarna soo gudbeen qaarna maxaan ku idhahdaa maanta meelay jiraan aan la garanayn qaar gaaloobeen qaar maxaan ku idhaahdaa maanta waxyaaba dhaqanno xunxun oo badan oo aynan inagu aqoon jirin ay la soo baxeen oo raaceen oo ay maxaan ku baalkoobeen marka waxyaabaha dhibaatooyinka caynkaasoo dhan inoo keenay waxaan oran lahaa soomaaliya waxaa intaasoo dhan ina geysiiyey waxa weeyaan dalkeennii aynu iska burburinay gacmaheena ku burburinay qof waliba nolol fiican siduu ku heli lahaa waa garanayaa mana yeelayo sababtoo ku tahay waxa weeye waxaan u jeedaa ma yeelayo markaan leeyahay waxa weeyaan dee nabadgelyada walaalnimada ayaa lagu helaa soomaalinimada dowladnimada ayaa sharaf iyo maxaan ku idhaahdaa darajo iyo intaasaa lagu helaa marka dee ninkii doonayo dee sharaftaa raadi oo sharaftaada ninkii doonaya carruurtiisu inay badbaadaano dee sharaftaa raadi carruurteenna waa inaynu u noqonaa wax la yidhaahdo aynu jiilka dambeeto si ay carruurtoodu ay sharaftii ay soomaaliya ku noolaan jireen ku noolaadaan ilaahay waxaan ka baryayaa waa galab casara weeye in ilaahay soomaaliya isu soo celiyo ilaahay tashuushka ka saaro aamin oo ilaahay uu ka saaro maxaan ku idhaahdaa xastiga xiqdiga iyo xastiga ilaahay uu ka saaro aamin inayna inku leexato waanada iyo wacdiga iyo muxaadarooyinka islaamka oo culimada islaamku intaa inoo sheegayaan oo aynu dhegaysanayno war qur-aanka yaynaan ka been sheegin qur-aankan aynu dhegaysanayno 24 hours oo inaga lafteenu akhriyayno war hayna galo war hoos eega kor ha eeginine war kor waxba ina kama jiraan oo kor aan markaan leeyahay indhaha meel kale ha u taagnine ee dalkaagii iyo dadkaagii indhaha u taag war ka dhiidhiya waxyaabaha bini aadanka ina kula kacayaan oo maxaan ku idhahdaa dhulkeennii badaheennii maanta ma inu bahalkaysa war arrimaha ha laga hadlo war ha ka hadlina maxaan ku idhahdaa turkiga arrimahooda teeni ku noqon maayo hadalkaygii hore laakiin arrintu waxay tahay dee iyada unbaaba ku warwareegaysaa sababtoo ku tahay toobigii loo hadloba waxay noqonaysaa inaynu inagu teeni u jeensano marka ilma adeerayaal oo soomaaliyey walaalahay baa teen waa idin jeclahay waagii hore nin baa wuxuu oran jiray soomaalida dhaqankeedii waxaa ka mid ahaa nin baa dhaaran jiray maanta haddaan sidaa la yeelin labada xiliyood baan isgoonayaa buu oran jiray haddaanan maanta saa la yeelin labada xil anigu maanta halkii baan taagnahay maanta haddaan dalkeennii iyo sharafteenii la soo celin dee nolosheedu maxay taraysaa noloshiinuse maxay taraysaa maxay taraysaa nolosheenu waxba tari mayso in yar oo gobonimo ama geeri waxaan leeyahay maanta raggaan la hadlaya marka raggaan la hadlaya ilaahay ka baqa ragow ilaahay ka baqa gabdhaheennii iyo carruurteennii iyo xaasaskeenii ninka wuxuu yidhi gashigaaga maqan waa inaad goobataa aabidey godobtaada waa loo noqda yaad gawaad noqonay gawaad anigu waxay ma garanayo laakiin yaad adigu waxu noqon un weeyaan war ninku dhibashuu ka dooran jiray in gurigiisa xaaskiisa iyo ilmihiisa la taabto intuu ka dooran jiray ilma adeerayaal oo soomaaliya anigu darajana ma rabo ilaahay baa darajada bixiya xoola ma rabo talaagadu waa ii buuxdaa maasha allah kuwa gaajaysanna ilaahay iyagana siday talaagada ilaahay ha u buuxiyo laakiin waxaan leeyahay anigu maanta halkaa waxaan isu soo taagay oo hortiina isu soo taagay waxa weeye soomaalinimada iyo islaamnimada ayaa ina faraysa inaynu wixii wanaagsan cid in la dilo ama wax la yeelayo anigu against baan ka ahay dalkeennii in la qaybqaybiyo oo gobol hebel la yidhaahdo anigu against baan ka ahay haddii aynu maxaan ku idhahdaa dawlad samaysano oo wixii inagu aynu isla afgarano aynu isku dhaqayno taas iyadu waa meesheeda laakiin wax gacan ku rimayso aad ogtihiin meelahay ka yimaadeen inaanay soomaali shaqo ku lahayn oo aanay inaga maxaan ku dhahay ama United Nation ama European Union ama American whatever wixii ka imanaya ay halkaa ka sameeyeen oo laynoo dhisaayo war maxaa inoo diiday inagu inaynu wax dhisno war qof bini aadmiya oo ilaahay abuurtay oo hadduu doono aan kula kala rahayn oo hadduu doono aan kula diinahayn oo hadduu doono maxaan ku idhaahdaa aad isu jirtaan intaas oo kilomitir isu jirtaan arrimahaaga ka talinaya waxaa aada iyo aada ii cajib geliya
وأنا أضوحنا وحلا يراهدا international community arrimaha Soomaaliya ka hadlayaan maanta maxaa tirahdeen international community arrimaha Soomaaliya ka hadlayaan Soomaalida waa joogtaa kana qayb maaha hadda wariyaa dadkan mas'uul loo ka dhigay inaga ummadda yaa mas'uul loo ka dhigay inaga warban ceebta inta la eegaga danahaagi iyo dalkaagi baa laga hadlaya war ma dalkay kula leeyihiin inagu kuwada ma ka hadalaa war maanta Soomaaliya iyo binaadam isu keenay maanta waxay ka hadlayaan arrimaha China arrimaha China ka hadlaynaa maxaa inaga ka dhigay timir xabaal taal timirta xabaasha taal goorta la keeno qofku markuu dhinto waagi hore waxa jiri jiray wax la yiraahdo qabriga dadka qodaya waa dhul adag qarabna lama haysto lagu qodo marka waxyaabo yar oo mindi bahalkii gudmo iyo waxbay soo qaadan jireen faasas iyo markaas ku qodi jireen marka aad bay dadkaas u daali jireen waxayna u baahan yihiin marka waxay garanaysaa siiya maaragtay awood siiya marka timir baa loo keenay jiray timirta xabaashta marka nin walba uu yimaada xitaa mid aan xabaashi qodin baa yimaado iska qaata laba kala laha weey war inaga teena maxaa ka dhigay waxaan kala lahayn arrimaha Soomaaliya maxaa ka nin walba uu ka hadlaya booqa u yeera baraara u yeera marjar Jarmalna u yeera Mareykan u yeera Afrika u yeera nin cad u yeera Arab u yeera Ajab u yeera Muslim u yeera gaala u yeera maxaa arinteeda ka dhigay wax nin kasta oo bini'aadan oo adduun korkiisa ku nool maanta wax uu maxaa xalinayaan 26 sanadood baa marba gees leeynoo jeedinaya marna leeyahay ma yaasamaha xagga weey layna kala ilaalinaya waa layna kala ilaalinaya inuu kelmad nidaahno laynooma ogola taasna inaga layna ka helay idina inama khasmin idin hadaynu cagaha dhulka ku adkayno oo niraahno maya warba horta maya diida inagu maga way isniraahnaayeen dadka kaleeto mid yar baan ku soo gabagabinayaa oo tusaale ah Soomaaliya waxay la yiri nintiisa wax xoog badan tan kalena u tabaryar nin Soomaaliya iyo nin Mareykan baa maalin diray markaas ninkii Soomaaliga ahaa la diray kii oo la diray baa noo yimaano oo koox meel fadhiyo warseeta wallahi ninkaas uu igu dhuftay hadii maanta Soomaali nin Soomaali igu dhufan lahaa wiil wallahi loo kala baxeen oo waxaad ninka Soomaaliga iskaga celinaysid maxaad iskaga celin weyday ninka bini'aadanka isla jawaanin bini'aadan ah waxaad ugu hanjabaysid ilmaha riyaal oo arintaas aad bay inoo ku badan tahay khayr Allah idin siiyo waxaan idinka codsanayaa وأن كسر جنانا ذي هذا إلهي الصومالي هاي سوعليه آمين شرفتين الله سوعليه آمين عرورتين يضمر كأننا إلهي قادر النفسي كان يكشر إلهي كسر نورشة يكشر عن مانتا أو إلهي قادر كغفور الحين كهو بدلو متك خير بدن ورجو إلهي هالسورسيو إني حقه الفهمان آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.